inaan ku soo ururiyo mowduucan horyaala kan koobaad waa midnimada ummadda Soomaaliyeed waa sharci iyo taariikhi ay ku dhisan tahay Soomaaliya waa dal midnimadiisa qaranimadiisa iyo madaxbannaanidiisa laga aqoonsan yahay qaramada midoobay midowga Afrika IGAD jaamacadda Carabta iyo beesha caalamka xuduudaha Soomaaliya waa kuwa caalami ah oo lagu xaqiijiyay xilligii xornimada lamana bedeli karo si hal dhinac intaas qodobkaas koobaad waa midnimada qodobkaas koobaad waa midnimada Soomaaliya qodobka labaad midnimadu waa doorashada shacabka Soomaaliyeed iyaga oo aan qasbanayn ayay waxay doorteen inay midoobaan dastuurka kumeel gaarka ee aan leenahay wuxuu cadeynayaa in Soomaaliya ay tahay hal jamhuuriyad oo hal calan leh oo hal qaran ah federaalka Soomaaliya wuxuu ka turjumayaa wada noolaasho hab maamul iyo wadaag awood ee ma aha kala go iyo isbarbar socod qodobka saddexaad waa midnimadu waa tiirka nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya iyo dhammaan geeska Afrika Soomaaliya oo kala qaybsan oo dawlad yar u burbursan oo dawlad yar ah waxay khatar ku tahay amniga gobolka iyo marinada ganacsiga caalamiga ah sida Baaba-Mandab Soomaaliya dan uma ahan kala qaybsanaan iyo kala go beesha caalamka iyo geeska aan ku naalnana dan uma ahan Soomaaliya oo midaysan waxay door muhiim ah ka qaadanaysaa xasilinta gobolka kobaca dhaqaalaha qodobka afraad dawladda federaalka Soomaaliya waxay u heelan tahay wada hadal iyo isu tanaasul dhammaan madaxdii hadashay waad ka maqlayseen waad dhaminayseen aragtiyadooda oo si cilmiyeysan ahayd dawladda federaalka Soomaaliya waxay rumaysan tahay in caqabad kasta lagu xallin karo wada hadal siyaasadeed oo loo dhan yahay dawladdu waxay aaminsan tahay in midnimada iyo isku haynta dalka ay gogol dhig u tahay wada hadal cadaalad iyo is-ixtiraam qodobka shanaad arrimaha gudaha laguma xallin karo faragelin shisheeye sida aad ogtihiin waxa hadda dhacay oo halkaan aan u joogno waa faragelin shisheeye qadiyadaha Soomaaliya waa arrimo gudaha ah oo u baahan xal Soomaaliyeed uma baahno farangelin kaga timid dibadda haba yaraatee faragelin dibadeed ama aqoonsi hal dhinac ah wuxuu ka hor imaanayaa sharciga caalamiga ah cidna meel ma gaarsiinayo wuxuu keeni karaa oo kaliya dib u dhac qodobka lixaad midnimadu waa danta jiilalka maanta iyo berrito inaan mid ahaano xooggeena iyo quwaddeena iyo maskaxdeena ay mid ahaato waxay dan u tahay dhalinyarada waxay abuurtaa rajo waxay abuurtaa shaqo abuur waxay abuurtaa dhaqaale kororsi midnimada intaasay abuurtaa wixii midnimada ka hor yimaadana badalkeeda ayay abuurayaan waxay abuurayaan faqri isnacayb iska hor imaad isdil iyo waxa loo baahneen oo aysan Soomaali u baahneen qodobka ugu dambeeya dawladda federaalka Soomaaliya waxay ixtiraamaysaa kala duwanaanshaha aragtiyada siyaasadeed balse waxay ilaalinaysaa qarannimada waa wax muqadas ah waa waxa wada leenahay waa waxa ku wada qasbanahay inaan wada ilaashano aqoonsiga dhaqanka maamulka iyo baahiyaha deegaanadu waa muhiim waana muhiimadda ugu weyn ee aan u qaadanay ismaamul hoosaadka nidaamka federaalka sidiisaba ujeedada laga lahaa waxay ahayd in maamulka loo daadajiyo tuulooyinka degmooyinka xaafadaha iyo meelaha hoose si baahiyaha dadkaas iyaga ay u maamushaan oo ay baahiyada iyaga ugu timaado ayna u dabooshaan laakiin looma abuurin in lagu kala fogaado si kastaba ha ahaatee midnimada iyo madax bannaanida iyo wadajirka qaranka waa xariiq cas oo qof kasta oo Soomaali oo damiir leh waxay u tahay xariiq cas red line ayay u tahay qof kasta oo Soomaali ah marka waxaan ka rajaynayaa ardayda sharafta leh waxaan rajaynayaa aad ka faa'iidaysateen doodan runtii adinka ayayna idinku xiran tahay halka aad gaarsiisaan qarankiina adinku idin baahan yahay inaad si cilmi ugu fikirtaan bulshada si isugu dhaweey karaa sideen midnimadeena ku adkay karnaa waa midaysanahay waa xaqiiq
sidoo professor Badiyo sheegay shakhsiyaad siyaasadda maybe ama ku fashilmay ama aanan kala hayn aragtiyo rasmi ayaa laga yaabaa meelaha qaarkood in dalka la kala googooyo la kala qoqobo inay wadaan laakiin shacabka Soomaaliyeed raas Kamboni iyo raas Kacayr way ka midaysan yihiin waa isku dad waa isku dhaqan waa isku diin runtii aragti siyaasadeed oo xooggan oo xitaa ay ku kala maran yihiin male laakiin waa un qof siyaasi ah ayaa laga yaabaa inuu dhinac u riixo oo u dhaho dantayda shakhsiga halkan ku jirtee reer hebel ama guruubo ila raaca marka adinka idinku xiran tahay dhalinyaro inaad difaacataan qarannimadiina midnimadiina meesha ugu yar ku difaacan kartaa waa social media wixii wanaagsan inaad share garaysaan wixii xun inaad ayac iska dhahdaan kala qaybsanaan qofka ololeynaya inaad dhahdaan raalli ahow kan wanaagu ololeynayana inaad taageertaan inaad dalkiina maanta ayuu idin baahan yahay dhalinyaro asamanta bixisaan marka fariintaan idinkaga wada wasaaradda arrimaha dibadda waa inta aad iyo aad ay u mahadsantihiin xilli duhur la joogo waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.